السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan asxaabta waa salaamantiin meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan halkaad igala socotaan waa channelka Motalyan iyo Facebookgayga Maxamed Cabdiraxmaan Cali sidaa ulaba socoteen waxaan hore usoo gudbiyay casharo accounting ah anigoo hore uga hadlay laba cashar labadaas casharna waxay ahaayeen muxuu yahay accounting sidoo kale waxaan ka hadalnay shanta account ugu dhaqdhaqaaqa badan markii accounting kala joogo fadlan haddaadan labadaas cashar soo daawanin fadlan soo daawo youtube-keena Motalyan ayaad ka helaysaa haddiida casharkaas hore usoo daawanin way adag tahay inaad casharkan la socoto insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad videogaas aad soo daawato saad gaariga noola soo korto aan u gudagalno casharkeena waxaan ka hadli doonaa wuxuu yahay accounting equation xisaabta isla eg maxay tahay caawa hadduu Allah awood leh karaale noqdo accounting equation wuxuu yahay ayaan ka hadli doonaa accounting equation-ka formula ayaa jirto accounting equation-ka wuxuu leeyahay formula ama qaacido loogu shaqeeyo qaacidadaanitana qofkii fahmo accounting equation-ka gacantiisa ayuu ku hayaa haddaba accounting equation-ka ama xisaabta isla eg qaacidada lagu helo waxay tahay asadkaaga wuxuu la mid yahay liability oo lagu daray owners equity asxaabtu waxaan iga rajeynaa inaad soo daawataan videogan video ka horeeyay maxaa yeelay asad wuxuu yahay hore ugu soo hadlay inta meel loo kala saarana waa soo cadeeyay sidoo kale liability wuxuu yahay hore ugu soo hadlay owners equity sidoo kale wuxuu yahay hore ugu soo hadlay caawa kaliya waxaan focus ka saari doonaa hadduu Allah awood leh karaale noqdo accounting equation kaligiis okay aan soo laabana casharkeena accounting equation-ka formuladiisa waxay tahay asad wuxuu la mid yahay liability plus owners equity asadka ama hantida shirkadda ay leedahay kaliya laba qaab bay nagu imaan kartaa in anaga wax soo deensano iyo dadka meesha iska leh inay isku daraan inay lacag dadka meesha owners equity dadka meesha fangareey inay lacag keenaan iyo inaan deen soo qaadano labadaas kaliya asadkeenu ku imaan karaa ama wuxuu noogu imaan karaa inaadan waxba soo deensin oo adiga meesha company-ga iska lahay automatic inaad meesha u maalgashato ama ninka company-ga iska leh inuusan lacag keenin oo lacagtii soo amaahdo oo soo deensado saddexdaas qaab buu ku imaan karaa asadkeena accounting equation haddaad rabto inaad fahanto kaliya laba mid fahan waa own house what business own businesska lacagta uu leeyahay waxaa loo yaqaanaa own waana asad waay muxuu lahaan karaa businesska gaariidka guryaha qalabka wax walba oo asad ah oo company-ga leeyahay waa own shirkadda iska leh what business house maxaa businesska asiga lagu leeyahay asiga waxaa lagu lahaan karaa liability in asiga deen lagu yeeshto ama owners equity ninka meesha iska leh wax ku yeeshto mar walba maxaa madax ku haysaa businesska ganacsiga iyo ninka meesha iska leh inay kala madax banaan yihiin aysan shaqo isku lahayn laba qof kala madax banaan waaye ninka asigoo company-ga iska leh ayuu company-giisa lacag deemin karaa waa fahanteen soo maahan waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen haddaad inta fahantay xisaabaadka hadda aan ugu gudagali doona company ayaan ka shaqayn doonaa iyo transaction ayaan soo qaadan doonaa anagoo mid formuladii isticmaalayna oona mid walbana isticmaali doona hadduu Allah wadala karaale noqdo aan soo koobo asset accounting equation-ka formulada loogu helo wuxuu yahay asadkaaga wuxuu la mid yahay liability plus owners equity asadna waxaa la yiraahdaa own waxa businesska asiga uu leeyahay liability owners equity-na waa house waxa businesska ayaga ay ku leeyihiin halkaas ayaan uga baxay anagoo gudagali doona transactionadeena aan soo qaadano transaction 1 warkan si fiican u fahan haddaad warka fahanto qaacidadii aad soo fahantay ayaad ugu shaqaynaysaa waxaa lagu yiri assume you start a business by obtaining a loan of 500,000 how will this affect the accounting equation waxaad bilowday ganacsi waxaana ku bilowday $500,000 haddaba sidee u saameynaysaa accounting equation
okay accounting equation kan laba meel buu saameynaya waa assetkii iyo liability warka kore ku laabo warka kore waxa ku jirto alone hadad ku aragtana waa deyn waxa laga soo deensanay bangiin 500,000 oo ganacsigan lagu bilaabay $500,000 okay aniga ganacsigan bilaabnay waa assetkeeni raasumaalkeeni waxaan ku bilaabnay 500,000 waa tana $500,000 sidoo kale lacagtan bangigan ka soo deensanay waa 500,000 oo deen anagana lagu leeyahay okay owners equity waa 0 saameyn wax dhacdadan saameyn kuma yeelanaysa owners equity okay aan u gudubno transaction 2 transaction keena labaad aan u gudubno transaction keena labaad waxa lagu leeyahay the company obtained 50,000 in cash from revenue how this accounting equation affected waxa lagu yiri cash ayaa soo galay company-geena wuxuuna ka soo galay revenue haddaba sidee u saameynaysaa accounting equation-ka aan mid hal mar nii xasuusiyo lacagtana u jeedin waa lacagtii hore oo transaction 1kii aan ugu soo shaqeynay okay sidee u saameynaysaa dhacdadan horta aniga waxaan la yiri cash ayaa soo galay company-geena waxaad maskaxda ku haysaa mar walba cash hadad aragto wuxuu hoos imaanaa account cashka mar walba wuxuu hoos imaanaa assetkina waa kana 50,000 intee noo timaade 5 waa cash 50,000 automatic waa asset okay dhacdadan kale intee saameynaysaa marka lacagtan waxay ka timaatay revenue account revenue la yiraahdo simply wuxuu saameyn ku yeeshaa owners equity-geena asigana waxa ku soo kordhay lacag $50,000 ah okay liability-ga wax saameyn kuma yeelanaysa barkay aniga deen kuma soo qaadanin lacagtii waa lacag anaga aan ka ay noogu timaado revenue okay labadan lacag isku dar assetkeena marka hore waxa ku jirtay $500,000 waxa ku dartaa $50,000 waxa isku maanaysaa $550,000 liability-ga sidiisu soo dajiyo waa $50,000 waa $500,000 aan dhahe owners equity-ga asina waxa noogu jirto $50,000 okay aan u gudubno transaction keeni saddexaad waxa lagu yiri suppose the company management paid out 40,000 in salary how does this affect the accounting equation maamulihii company-ga wuxuu bixiyay 40,000 oo salary ah haddaba sidee u saameynaysaa dhacdadan accounting equation-ka waxaad maanka ku haysaa mar walba formuladii iyo qaabkii loo shaqeynayay formuladeen waa tan automatic ayada hore u soo qaadanay okay balance-gii hore noogu jirina waa ka okay aan ka shaqeyna marka transaction kan qaabku u saameynaa horta waxa maskaxda ku haysaa anagii waxaan bixinay 40,000 kunna waxaan ka bixinay cash-keena okay automatic cash-keena waxa ka go'aya lacag gaaraysa $40,000 $550,000 akoonka noogu jirtay 40,000 oo salary aan bixinay waa cashkii waa yaraaday balance-ga akoonkeena wuxuu noqday assetkii 510,000 okay liability wax shaqo kuma yeelanayso barkay lacag la bixiyay liability wax saameyn kuma yeelanayso waxaana geeysa owners equity barkay account la dhahay salaries expense ayaa soo kordhay 40,000 intan waa ka goonaysaa salary expense waaye 50,000 ayaa noogu jirta owners equity waxa ka jirta 40,000 waxa soo haraysa $10,000 finally maxaa noo dhiman company-gii hadda waa ka shaqeynay Soomaaliya waxa soo saareen net worth oo company-ga haysto what is the net worth of the business ganacsigan lacagta net worth ku haysta maxay tahay hadda net worth asigaasna wuxuu leeyahay formuladiisana waxay tahay waxa lagu helaa net worth assetkii oo laga jaray liability okay noocili transactionkii ugu dambeeyay assetkeena waxa ku jirto $510,000 ah liability-ga waxa ku jirto $500,000 okay assetkii 510,000 waa tana liability-ga 50,000 waa tana labadan markaan kala jarno waxa soo haray lacag 10,000 ah 10,000 ayaa noo ah lacagta nadiifka oo company-ga haysta net worth-ka waxaan rajeynaa inaad fahantay accounting equation-ka wuxuu yahay accounting equation-ka lagu sheegay formulada waaye
formula haddaad fahanto shaqo walba ku taalo automatic ayaad u cabaysaa waxaan rajeynaa haddaad videogan wax un aad ka faa'iiday inaad la wadaagi doonto walaalahaaga aad share u dhihi doonto insha allah casharkan casharka ku xiga intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu